BBC Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo boggan internetka ku leenahay ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniin ah 4 bisha Julaay ee sanadka 2022 idaacadda subaxnimo waxay idin la socodsiinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad ku maqli doontaan waxay kala yihiin qasaaro ka dhashay weerar xalay ka dhacay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Turkiga halkaas oo uu kula kulmi doono dhigiisa Rajab Erdogan hadaba maxay si gaar ah uga wada hadli doonaan waxay si gaar ah uga wada hadli doonaan iskaashiga labada dal u dhaxeeya iyo xiriirka diblomaasiyadeed in la adkeeyo in iskaashiga dhaqaalaha iyo midka amniga iyo midka diblomaasiyadeed labada wadan ka dhaxeeya sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa ay ka wada hadli doonaan baad ku habsaday dadka ku nool deegaanka dhinowda ee gobolka Mudug waxaana kamid ah ninkan oo ka waramaya xaaladooda hadda khadka aad igala hadlaysay qof banaanka istaagi karaa ma jiro guriga dhexdiisana waadan hadda loo jeedin hadda loo jeeda aragti kale laga qaadanay annagu guriga ku jirna baan xabaalanahay saacaddan oo waxaan u egnahay sida bahalada doodka galaan u egnahay madar tartanka kubadda cagta ee gobolada deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo heer gabagaba ah maraya Ethiopiana waxay wadaa qorshe ay dalka dib ugu soo celinayso muwaadiniinta u dhashay dalkaas ee ku sugan bariga dhexe qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Xasan Sheekh Cumar mahadsanid Kowsar madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamada Ukraine ee magaalada bari ee Lysychansk talaabadan waxay muujinaysaa in ciidamada Ruushku ay gacanta ku dhigeen guud ahaan gobolka Luhansk waxayna dib u eegis ku sameynayaan howlgallada gobolka Donetsk ee dariska la ah halka oo magaalooyinka ay hadda ku socdaan duqeymo xooggan Zelensky waxa uu sheegay in dib u gurashada lagu amray ciidamada Ukraine taasoo loogu talagalay in lagu badbaadiyo askarta Ukraine saddex qof ayaa dhintay kadib markii nin hubaysan oo rasaas ku furay xarun laga dukaamaysto oo ku taala caasimadda dalka Denmark ee Copenhagen ninkan oo u dhashay dalkaasi Denmark ayaa 22 jir ah waxaana xiray haatan booliisku waxa sheegeen in aysan meesha ka saari karin in falkaasi uu yahay mid argagixisa hogaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa ku heshiiyay in laga qaado cunaqabataynta dhaqaale ee curyaanisay ee ka dhanka ah madaxda militariga ee dalka Mali kadib markii ay go'aansadeen in ay dib ugu celiyaan xukunka rayidka markii la gaaro bisha Maarso ee sanadka 2024 xilligaasi oo la sheegay inay fulinayaan ballanqaadkaasi ay hadda sameeyeen madaxda ECOWAS ayaa sidoo kale lagu ansixiyay shirka madaxda ECOWAS ayaa sidoo kale lagu ansixiyay jadwalka Burkina Faso oo dib ugu soo noqonaysa dimuqraadiyadda balse waxa ay diideen qorshaha 3 sano ee ay soo jeedisay Guinea oo ah wadankii saddexaad ee gobolka ku yaala oo goobjoog u ahaa afgambi military sanadihii u dambeeyay siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Uzbekistan ayaa sheegaya in laga yaabo in 10 qof lagu dilay qalalaasaha ka taagan gobolka ismaamulka Karkalbagistan maamulka caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 10 qof ay ku jiraan isbitaalada kadib isku dhacyo ka dhashay qorshaha dawladda ee ah in dhulka ismaamulka gobolkaasi uu xaq u leeyahay in uu gooni u goosto ugu dambeyntiina wasiirka maareynta degdega ee masiibooyinka ee dalka Australia ayaa ku baaqay isbeddelka cimilada si dhab ah loo qaato kadib markii daadadkii ugu dambeeyay ay waxyeeleeyeen gobolka New South Wales Mary Watt waxa uu ku tilmaamay kororka joogtada ee dhibaatooyinkan oo kale inay jirto baahi loo qabo maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo
qorshaha yaraynta masiibooyinka dabiiciga si markaasi meesha looga saaro dhibaatooyinka soo noqnoqday ee waxyeeleeyey dadka dalka Australia. warkii caalamku waa naga intaa Kowsar. aad baad u mahadsan tahay xasan sheekh cumar. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa BBC. waatahay subax wanaagsan marka la dhageystayaal aan ku bilaabnay ee sida warka caalamkaba aad ku maqlayseen 3 qof ayaa ku dhintay weerar uu nin hubeysan ku qaaday xarun lagu tukaamaysto oo ku taala caasimadda dalka Denmark ee Copenhagen. toogashada oo ahayd mid aan kala sooc lahayn ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan oo 3 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno weerarkaas ayaa waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Sharaf oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Copenhagen. markay saacadu sheegaysay abaaro 5 iyo barkii ayaa waxaa xabada ka bilaabmay centerka ugu weyn ee Copenhagen taasoo Philips magaciisa la yiraahdo. markaas ayaa lagu warhelay oo lagala hadlay booliskuna markaa si quwad leh oo dhammaan ambulance leh wax walba leh ayaa toos meesha loo tagay. marka waxaa la ogaaday inuu yahay nin dhalinyaro oo 22 jir ah ayaa xabad dadkii ku bilaabay. ilaa hadda ma jira marka qof gacanta lagu soo dhigay ama dad kale oo weerarkaasi toogashada ah ka dambeeyay. waxa horta inta la og yahay waa ninka dhalinyarta 22 jirka. markii hore boolisku waxay u qaateen arrin weyn oo ay dad badan ku jiraan marka center noqoto in qof kaliya uu ka qayb qaato falalka noocaas. laakiin xaaladdu markii xoog loo baadhay waxay noqotay in ninka dhalinyarta uu yahay ay isaga gacanta ku soo dhigeen. boolisku arrintan way ka gaabsadeen ayaa tiri. ilaa hadda dawladda ma ka hadashay? dawladdu way ka hadashay oo waa laga hadlay oo ilaa xilligan meelaha magaalada u dhow oo dhan bandoob baa la geliyay. boolisku ilaa helicopter way socdaan. magaalada waxaa jirta xataa Denmark ama Copenhagen waxaa ka socday baaskiilada maarta Faransiiska lagu qabto ayaa doorkan lagu qabtay Denmark taasoo markaa la soo gabagabeeyay maanta oo qaybta boqorada ciidankeedu ka qayb gali lahaa oo ugu casuumay taana waa la joojiyay. xaflad meesha u dhoweyd oo dad badan ka soo qayb galeen oo lagu dhigayna taana waa la joojiyay. marka total magaaladu waa jirweeyaan. ma la ogaaday marka weerarkan waxa uu salka ku hayo? may lama ogaanin laakiin midiyahu way weerareen su'aalo ayay ku weerareen maarta xagga booliska laakiin waxay yiraahdeen way ka gaabsadeen wali sheegan laakiin way noqon kartaa inay terror noqoto bay yiraahdeen laakiin wali ma caddayneen. magaalada Copenhagen waxaa la sheegay inay dhawaan noqotay magaalada ugu nabdoon dunida. maxaa weerarkan hadda fududeeyay baa la isdhihi karaa? wallaahi lama garan karo oo dee fajaci ama kaag bay cid walba ku noqotay oo dee meel dad caadiya oo iska shoobinaysanaya oo moola oo aan dee wax siyaasadiya ku lahayn inuu qofkani soo galo uu ka sameeyo laakiin weli lama garanayo waxay sal ku leedahay. waayo Copenhagen waa sheegtay waa meel nabdoon oo xilliga doonta soconayso aan dhib jirin laakiin tan dad waxay noqon doontaa markuu boolisku shub ay noqon doontaa laakiin markii hore wixii la saadaalinayay oo qof shisheeye la moodi lahaa inay ka dambeeyay laakiin arrintan way noqon jawaabtaan booliska ka sugan. kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sharaf oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Copenhagen ee Denmark oo iiga waramayay weerarka halkaasi ka dhacay. markana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Turkiga kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa Turkiga ee Rajab Tayyip Erdogan. labada madaxweyne ayaa si gaar ah uga wada hadli doona xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dal iyo in la adkeeyo iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee ka dhaxeeya labada dawladood iyo waxyaabo kale. faahfaahintaasi dheer waxaan qadka telefoonka ku weydiiyay Cabdikariin Cali Kaar oo ah afhayeenka madaxtooyada. madaxweynuhu safar wuxuu ku tagay dalka Turkiga waxaanu casuumaad rasmi ah oo official uu ka helay hogaamiyaha dalkaas mudane Rajab Tayyip Erdogan. waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha wasiirka waxbarashada dalka Turkiga mudane Mahmoud Aseer iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Ambassador Jaamac Abdullahi Aydid. madaxweynuhuna wuxuu maalmaha soo socda joogi doona oo kulamo rasmi ah la qaadan doona qaybaha kala duwan ee dawladda Turkiga oo uu ugu weyn yahay madaxweynuhu Rajab Tayyip Erdogan. madaxweynaha waxaa tiri waxa uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa Turkiga ee Erdogan. labada mas'uul maxay si gaar ah uga wada hadli doonaan? waxay si gaar ah uga wada hadli doonaan Turkiga iyo Soomaaliya xiriirka ka dhaxeeya waa mid qoto dheer waa mid muhiimad gaar ah u leh Soomaalida waqtigan lagu jiro. dalka Turkiga sidaad ka warhayso waa wuxuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya u soo gurmada barigii waqtigu adkaa
diyaaradihii ugu horreeyay duulimaadka ka bilaabay iyagaa lahaa waxbarasho hadday noqon lahayd hadday caafimaad noqon lahayd haddii ay amniga noqon lahayd wax badan bay Soomaali ka caawiyeen marka iskaashiga labada dal u dhaxeeya iyo xiriirka diblomaasiyadeed in la adkeeyo in iskaashiga dhaqaalaha iyo midka amniga iyo midka diblomaasiyadeed labada wadan ka dhaxeeya sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa bay ka wada hadli doonaan safarkuna intaas ku saabsan yahay sanadihii u dambeeyay ama bilihii la soo dhaafay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh Turkiga ama siyaabo kala duwan halka u jooga waxay ka cabanayeen in si aan wanaagsanayn loola dhaqmo marka madaxweyne Xasan Sheekh inta uu Turkiga joogo maxaa uu qorsheysan arrimahaasi inta madaxweynuhu uu booqashada rasmiga ah ku jooga dalka Turkiga wuxuu si gaar iyo sidii u kala duwan yihiin ula kulmi doonaa jaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiga wixii cabashay iyo culays iyo dhibaato ay qabaan iyaga markaa uga warrami doona waxaa si xusuusin mudan dalka Turkigu waa dal sharci leh madax bannaan shuruucdiisana dadka Soomaaliyeed meesha ku nool waxa ay mar walba haboon oo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliga ay ku jira inay shuruucda u hoggaansamaan hadii wixii inta dhaafsan oo ama xadgudub ama dhibaato Soomaalida u gaar ah oo lagu bartilmaameedsanayna dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu mar walba waxay diyaar u yihiin dadka Soomaaliyeed inay goob walba iyo golo walba ku difaacaan sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha uu booqan doono dugsi tababar oo ay tababar ku qaataan qaar ka mid ah ciidamada xoogga ee Soomaaliya booqashadaasna bal nooga waran dalka Turkiga waxaa lagu tababaraa ciidamo commandos oo Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu booqan doonaa dugsiga tababarka commandosta lagu tababaro oo ku yaala xeer Sparta la yiraahdo madaxweynuhu markaa wuxuu la kulmi doonaa dhalinyarada meesha joogtay wax baranaysa waana arrin aad muhiim ugu ah Soomaalida Soomaaliya maanta la joogo adii ay noqon lahayd amniga iyo iska celinta kooxaha nabadiidka ee Soomaaliya dhibaatada ku haya iyo hadii ay noqon lahayd dib u dhiska iyo u saldhigida dawladnimada iyo ciidanka Soomaaliyeed kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Cali Kaaraf ayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo iiga warramay safarka madaxweynaha ee Turkiga aan qodobkaasi fursada siiyo dhageystayaasha Facebook waxay ka yiraahdeen Cabdisalaan Cali oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee gaaray Turkiga runtii waxay muujinaysaa in markasta uu Turkigu aad u doonayo in Soomaaliya uu garab istaago iyadoo aan ognahay in burburkii kadib uu ahaa dawladda aad Soomaalida gacan u siisay waxayna naga mudan yihiin garab istaag weyn Bushro Gabeere oo joogto waqooyi bari Kenya gaar ahaan qaxootiga Dadaab waxay leedahay madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaadanayo dhigiisa Turkiga runtii waan bogaadinayaa waayo Turkiga waa wadanka ugu dhow saaxiibka la ahaa xukuumadii hore taageero buuxana siiyay hadda sidoo kale waxaan ka filaynaa taageero buuxo inuu siin doono xagga ciidan iyo xag dhaqaalaba maadaama wadanku uu la daara dhacayo abaaro baahsan ay leedahay way mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wararka naga soo gaaraya deegaanka Dhinowda ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in bacaad uu ku habsaday dadka halkaasi ku nool taasoo dadka qaar ku qasabtay inay barakacaan guryahooda dadka deegaankaasi ku haray ayaa BBC-da u sheegay in ciidda ay guryaha ugu soo gashay halka guryaha qaarna ay baasmeen waxay sheegeen in inta u dhaxaysa bisha 5 ilaa 10 ee sanad kasta ay halkaasi ka dhacdo duufaan dabaylo wadata Sayid Cabdullaahi Macalin Xasan oo kamid ah dadka ku nool deegaankaas ayaa dhibaatadaasi uga waramay Samiir Cabdullaahi Jaamac Dhinowdo waa meel xeeba oo mudug waqooyi bari ku taala meeshaasoo cirifka labada maamul galmudug iyo Puntland meesha iska galaan ayay ku taala magarta oo xeerta anigu barkaasaan ku sugnaay xaaladda aad sheegaysana waa run meesha waa duugantay abaaro badanna waa ka dhaceen hadeerna waa ka jiraan qofkii tabar lahaa ama meel kale ku noolaan kare ama kici kare oo guuri kare waa ka tago waa ka hajiray intii tabari reebtay oo dhaqaaqa waayana meeshii bay joogaan ayagoo xaaladoodu ay ku sugan tahay marka dhabta kuu macneeyo dad adduun joogana maaha dad aakhirada jira maaha meel ka dhaxaysii joogaan weligaa ma maqashay meel ka dhaxaysa waayahay maxaa guryaha aasay oo ciidaas xageebay ka timid waqti kaste oo la gaaro bisha 5 la gaaro ilaa bisha 10 inta u dhaxaysa meesha waxaa ka dhacdo duufaan dabayl duufaana ka dhacdo magarad saaxadan hadda khadka aad igala hadlaysid qof banaanka istaagi karaa ma jiro guriga dhexdiisana waadan hadda loo jeeda aragti kale naga qaadanay annagu guriga ku jirna baan xabaalanahay saacadatan oo waxaan u egnahay sida bahalada doodka galaan u egnahay magarad oo marka ciidiba xataa guryaha gudihiisa kugu soo galaysaa
ciiddii baa guryaha gudahooda loo soo gelaysa oo guryihii sanaha waa laga soo cararo waa xabaalmeen shaqabyadii iyo wixii la dhistayna ciidda ma celin karaan oo iyadoo tabteediiya soo dhaafaysa madarata waayahay dadka inta barakacday marka laga soo tago inta haatan meesha ku nool oo adigu aad ka mid tahay sidee u nooshihiin noocay u nool yihiin markaan kaaga sheekeeyo noocaad fahmi karta ma ahan waayo markii horeba dadkan asalkooda waxay ahaayeen dad xoola dhaqataa oo aan magaalo lahayn oo miyigaas xoolaha ku dhaqda iyo dad aan waxaysan oo dabin dhigta oo badda wax dhigta shamaagugeed iyo gargo iyo badda ka raadsada xoogooda cuna madarad kuwii xoolaha lahaa xoolihii waa dhaafeen abaar baa dhaafisay kuwii badda wax dhiga jireen oo duufaan baa ku kacday madarad waagii hore ee roobku digi jiray markii roobdo oo dhulka wax ka soo baxaan oo dhulka ula yeesho wax ka soo baxaan duufaantu sidan waa dhaami jirtay oo dhulku ma kacaynin ma garad hadda markii abaarihii dhaceen oo isdaba galeen oo dhulka wixii laga ama caws ku yeela ay go-een dhulkii wada baxan xad noqday dabayshii markay kacday marka bacadkii baa isla wada dhaqaaqay kulligiis ma garad sidaasaa keentay marka bacadka siyaadada oo hadda wax aasaya oo loo adkaysan lahaya sidaasaa keentay sabiira ma garad marka maxaad marka oga gaashaaman weydeen hadday wax dhici jirtay oo horey u aragteen ay tahay wixii lagu talagalay oo la yidhi ha lagu gaashaanto oo tabarteenna aan isku taxalluujinay way ka awood bateen xirmooyin baa samaynay dhul baan bacad celin ku samaynay wixii dhammaan waa laga dulbartay waa la dul maray awooddaa ka badatay ma garad marka haatan ilaa iyo tan iyo ciidan ee markii ay ku bilaabatay iyo duufaanta aad sheegtay ma jiraan wax gurmad ah oo idin soo gaaray ama ha ahaato dad meesha idinka samata bixinaya ama ha ahaato dad wax idinla soo gaaraya walaal gurmad annagu waxa weeye xagga maamulada markii la aadana labada maamul meeshay iska galaan baan degannahay midba mid buu nagu riixay wuxuu yidhaha qoladaasay la jiraan qoladaasa xaggooda wax ka keentila hadda qolada qolay nagu riixdaa waxqaba toosa kama helno xagga puntland baa waxaan macnada inooga yimaadaan dadku hadda ku degan yahay oo bishii lixaad oo hadda dhamaatay WFP baa xoogaa raashina dadka u keentay ma garad dadku intaasay hadda naf ka dhiganayaan kusii jeedaan ma garad marka laga soo tago raashinka la idiin keenay biyo ma jiraan meesha ilaa abaaraa deegaankii hore u haystay biyo ma jiraan biyaha meesha iyadoo iska leedahay oo dhulka biyaha laga cabo waxay ahaayeen biyo cusbaa oo 10% baa macaankaa 90% waa cusbo waa biyo markii la cabo lagu shumayo waa biyo gebadooda cusbo socotaa roobkii iyo xareedii la dhaasan jireen waa la waayay si biyo la-aan u tahay meesha aysan biyo lahayn ma garad intiina aad ii sheegtay inay meesha ku hareen oo deegaankaas sida u duugmay ay ku nool yihiin maxaa idiin qorshaysan waxaa noo qorshaysan tabartuu meeshay nala gaadhaba annagu ka weynay inaan caalamka hay-adaha kuwa looqabka kuwa caalamiga dadka muslimiinta oo muslimiinta wax bixiya maamulada in kale inaan codsi u dirsano oo abaartaan laka soo gurmado waqtiba waqti buu leeyahay haddanu abaarta ka baxno sidii aan meesha waqti ay karnaaba qorshaheenu inaan qofkii awood helaba meeshaynu ka taga ama noo qorshaysanba meeshu meel nolol waa noogu dayrisan nolol ma garad waayahay ilaahay idiin dhibdhaamo sayid cabdulaahi macalin xasan oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka dhinowda ee gobolka mudug ayuu kaasi ahaa oo samiire cabdulaahi jaamac ugu waramayey bacaadka ku habsaday halkaasi waa tahay markana dowladda itoobiya ayaa wada qorshe ay dalka dib ugu soo celinayso in ka badan 100,000 oo qof oo ah muwaadiniinta u dhashay wadankaas ee ku sugan bariga dhexe gaar ahaana sacuudiga iyo yeman colaado iyo saboolnimo ka jirtay guud ahaan wadanka ayaa dad badan ku qasabtay inay fursado shaqo uga raadsadaan qurbaha waxaana badankooda ay u galeen safar halis ah iyagoo u gacan galay magafayaal oo tacadiyo u geystay wariyaha BBC-da Kalkidaan iyo Beeltal ayaa warbixintan soo diray waa kan Axmed Nagaashi oo soo jeedinaya wadine oo fadhiya xero loogu talagalay dadka barakacay ee lagu celinayo deegaanadoodii inay ku sii nastaan oo ay qaramada midoobay ku leedahay magaalada Addis Ababa wuxuu dalka ku soo noqday muddo dheer oo dhibaato ku soo mutay tahriib uu dalka kaga baxay markuu 16 jirka ahaa ee dugsiga ku jira ayaa waxa mar qulay iskuulkii uu dhiganayay shaqadii ka wada tagay macallimiintii wax ka dhigi jirtay sababtuna waxay ahayd qulqulatooyinka nabadgelyo darrada ka abuuray galbeedka dalka Itoobiya oo ahay deegaankii uu ku noolaa waa markaas kolka uu go'aansaday inuu u tahriibo Sacuudiga si uu helo dhaqaale uu ku taageero qoyskiisa hase yeeshee socdaalkaasi uma dhib yarayn sidii uu moodayay muddo ayuu Yemen oo ku xanuunsanayay joogay hase yeeshee markii dambe waxa kaxeeyay magafayaal arxan daran oo saxaraha ka talaabiyay waa kan isagoo ka waramaya dhibaatadii uu soo maray
kuwa wax tahriibiya waxa inagu qasbaan in waalidiinteenna aan wacno si aan uga codsano in lacag ay noo soo diraan waxa ay haystaan qorayo haddii waxa ay kaa dalbanayaan aad samayn weyso kuma siinayaan biyo iyo cunno mararka qaar waa ina garaacaan oo way naga cabaadiyaan si dadka kale ay u maqlaan macluul ayay ku dilayaan ilaa aad tabardarayso wadooyinka ayayna kugu tuurayaan haddii aad dhimato waxay kaaga tagayaan saxaaraha diine waxa uu taagnaa dadkii ay wada tahriibeen qaarkood oo intii ay socdaalka ku jireen ku geeriyooday dhulkii ay marayeen waxaana ka mid ahaa kuwo ku dhintay qaraxyo ka dhacay goob ay ku xidhnaayeen oo ku taalla magaala madaxda yemen ee sanca weerarkaas oo ay ururada xuquuqda aadanaha u doodaa ku eedeeyeen dagaalyahanada xuutiyiinta hase yeeshee ay xuutiyiintuna markii dambe sheegeen inay dhacdada aad uga xun yihiin sanad walba kumanaan dhalinyaro diine oo kale ah ayaa isku biimeeya socdaalka halista badan ee ay ku doonayaan inay ku gaadhaan sacuudi arabiya oo in ka badan 400 oo kun oo qof oo tahriibayaal etoobiyaan ayaa la rumaysan yahay inay ku nool yihiin dalkaasi oo qaarkoodna ku jiraan goobo isku raran oo nadaafad xun bishii Maarch ayaa xukuumaddu waxay shaacisay qorshe muddo sanado soconaya oo lagu soo celinayo 100 kun oo qof oo dadkii waddanka tahriibka ku galaya halka dhanka kalena ay qaramada midoobay kumanaan qof oo iyaguna ku xayirmay Yemen soo celinayso Shukriya waxay xabsi ku yaala Sacuudiga ku jirtay muddo 8 bilood ah kadib markii ay qabteen ciidamada booliska dalkaasi oo ururinayay dadka sharci darrada dalka ku jooga walow ay muddo 10 sano joogtay waddanka saliidda qaniga ku ah markii la soo celiyay haba yaraatee waxba ma haysan baasaboorka kaarka aqoonsiga qaranka haatan waxaan ku socdaa warqadan dadka soo laabtay sababtoo ah waan baqayaa xafiiska qaramada midoobay ee Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in dadka la siinayo taakula dib u dejina laakiin dhaqaale yari qudhooda la soo gudboonaatay ay gacantooda dib u xidhay Dine dhibaatada ugu weyn ee haatan mar kale hortaala waa qalalaasaha deegaankaysii weli ka taagan markii uu soo noqday 2 sano kadib tahriibkiisii qulqulatooyinkii deegaankiisa ka dhacay way sii baaheen oo waalidkii ayaaba haatan qaxay oo ku jira xero ay ku jiraan barakacayaashu oo haatan isagii ayaabay ku adag tahay inuu ugu tago oo meel uu maraaba aanay jirin walow dhibaato badan ka soo maray tahriibkii uu Sacuudiga ku tagay haatanna waxa uu ku soo noqday deegaankiisii oo dhibaatooyinkaasi dagaalada ay wali ka jiraan waxaanu soo gaaray Addis Ababa oo aanu garanayn haatan meel uga dhaqaaqo Axmed Nagaashaad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinay warbixintii wariyaha BBC-da Itoobiya ka soo diray Kalkidaan iyo Beltal halkani waa BBC markana waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ka socday tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada ku yaala deegaankaasi tartankaasi ayaa hadda maraya heer afardhamaad ah ama semi final waxaana isugu soo haray gobolada kala ah Erer Jarar Faafaan iyo Qoraxe hadaba waxaa tartankaasi la socday oo warbixintan inooga soo diyaariyay wariye Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo oo Jigjiga jooga koobka kubadda cagta ee gobolada deegaanka waa tartan ciyaareedka ugu xiisaha badan ciyaaraha deegaanka waa baratan u dhaxeeya xulalka kubadda cagta ee 11 gobol ee deegaanka jeerahanse waa markii koobaad ee loo gooni yeelo koobkan gobolada dhowrkii sano ee u dambeeyay 11 gobol waxaa ku helinayay koobkan sanadlaha ah 6 maamul magaalo ee deegaanka kasoo ciyaaryahanada gobolada wuxuu xifaaltan adag ka dhaxeeya taageerayaasha xamaasadeysan ee hadda labada gobol ee gelinka baratamaya xamaasada taageerayaasha ayaana ah kasii xaladeynaysa daawashada kulamada tartankan oo kumanaan aan garoonka joogin ee si toos ah khadka uga dheehanayaan waxaan tagaaraya gobolka Jarro waxaan u rajaynayaa guul insha Allah taala waraysiga dambe waxaan rajaynayaa anoo faraxsan in la waraysto markay faafan baxal nagu lahaa waa yar iyo baayar barakaygu waa soo dhacay laakiin insha Allah ciyaar gal dambe waxaan tagaaraya gobolka Faafan waxaan rajaynayaa inaan guul helo waliba aan koobka qaada aan ku rajaynahay goobta aan joogo waa goobta gobolka waxaan rajaynayaa inaan koobka qaado gobolka marka gobolka Faafan waxaan leeyahay guul wiilasheena waxaan leeyahay guulaysta noqda si loo hubiyo in xasrad aysan isku bedelin iyo rabshado xamaasadda taageerayaasha
labada gobol ee markaa wada ciyaarayo waxaa inta badan la kala fariisiyaa labada daraf ee garoonka si loo sugo xasiloonida garoonka. galabta waxaa ciyaaraya xulka kubadda cagta ee gobollada Jarar iyo Faafan oo ka mid ah gobollada ugu xamaasadda badan marka ay ciyaarayaan. inkastoo horey loo ogolaa in tiro cayiman oo ciyaaryahanaa laga keensado goobo ka baxsan deegaanka, sanadkan tartanka waxaa ugub ku ah kala iibsiga ciyaaryahanada ee gobollada dhexdooda, taas oo qaar ay gaf u arkaan. runtii fikirka anigu waan ka soo horjeedaa. axmed ismaaciil waa kaaliyaha tababaraha xulka kubadda cagta ee gobolka City. sababtoo ah waxaa weeye ciyaartooyada hal gobol u ciyaarayay in gobol kale oo ay u dheelaan qalad bay tahay. waayo arrin kooxahan marka la leeyahay tartanka heer gobol waa nidaamkii heer qaran oo kale. sidaas darteed in maad aragteen gobolka sanadkii hore ciyaartooygii gobolka City u dheelayay in isagoo waliba tababarkii ku jira la qaato maad aragteen nidaam maad aragteen xafiiskuna arintaa uu fasaxo uu gobol kale u dheelo. arintaanu mid ma ahaan sharci ahaan I don't know say xafiisku uu maareeyo laakiin qalad bay ila tahay. marka waxaan odhan lahaa isla gobolkaas waxaa jira dhalinyar ka soo jeeda oo fursadan looga faa'iideysan kari lahaa. waayo fursadan waxaa iskale gobol walba isaga fursadiisa iskale. xiriirka kubadda cagta ee deegaanka ee meel mariyay go'aankaasi kala iibsiga ciyaaryahanada ayaa qaba in go'aankani uu yahay fursad u faa'iideynaysa ciyaaryahanada, sida BBC-da uu u sheegay Cabdifataax Mataan Siciid, madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dowladda deegaanka Soomaalida. maadaama uunan hadda deegaanka uunan lahayn deegaanka Soomaalida liigis oo rabnana liigiska intaan bilowno, qorshahan wuxuu hordhac u yahay inaan liigi bilowno. sidaa darteed waxaan horyaalada ee gobolada aan u fasaxnay inay ciyaartooyada deegaanka gudihiisa ah ay iibsadaan ay kala gataan. salahan waxaad aragtaa macnaheedu gobolka Jarar maanta waxa u safan raggii hadda ka hor u safan jiray maamulka magaalada Jigjiga oo ay ka yihiin Mahad iyo macnaheedu Shandela. sidaas lamida gobolka Shabeelle waxa u safan ciyaartooygii hadda ka hor ka ciyaari jiray muxuu ahaa isla Jigjiga ama isla Faafan ama isla Jarar. sida qorraxyo kale maanta waxa u safan ciyaartooyga Shinile ka ciyaari jiray. marka City ayaan u jeedaa. marka annaga fursadu waxay noo tahay isdhexgal dhalinyarada inay isdhexgalaan. ahmiyad ballaaranna waxay noo tahay in isdhexgalka dhalinyaradu halkan maanta uu noogu yahay. tartan ciyaareedkan oo maraya kulamadii ugu dambeeyay ee afar dhamaadka ayaa ah kolka kaliya ah ay dhalinta ku kulmaan baratan kubadeed, waana tan hoos u dhigaysa heerka kubadda cagta ee dowladda deegaanka Soomaalida. aad buu u mahadsan yahay wari Ismaaciil Ibraahim Buurgabo oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku aadan tartanka kubadda cagta ee gobolada deegaanka Soomaalida oo haatan heer gabagaba ah maraya. isla ciyaarahan eegno gaar ahaan caalamka tartanka koobka qaramada Afrikana waxaa la sheegay in sanadka 2024 lagu qaban doono Ivory Coast oo aysan ahayn sanadka 2023 sida uu axadii sheegay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee loo soo gaabiyo CAF. tartankan ayaa waxaa lagu waday in la qabto bisha July ee sanadka soo socda laguna qabto Ivory Coast xilligaas oo ah xilli roobaad. Senegal ayaa waxay ku guuleysatay kulamadii hore ee qaramada Afrika oo lagu qabtay Cameroon wuxuuna ku guuleystay xulka Masar. wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooydana haddii aan eegno, kooxda Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa in Arsenal ay kula tartanto la soo saxiixada ciyaaryahanka Paulo Dybala kaas oo uu dhamaaday qandaraaskiisii kooxda Juventus, ayadoo Napoli ay sidoo kale doonayso weeraryahankaasi reer Argentina oo 28 sano jir ah. ciyaaryahanka khadka dhexe ugu dheela xulka Portugiiska Bernardo Silva waxaa City u dheela dabcan oo 27 sano jir ah ayaa wakiilkiisa ku wargeliyay in xil ciyaareedkan uu doonayo inuu ku biiro kooxda Barcelona. isla Arsenal waxay qorsheynaysaa toddobaadka dambe inay la kulanto Ajax iyadoo sii xoogeysanayo dagaalka lagula jiro la soo wareegida daafaca kooxda xulka Argentina ee Lisandro Martinez. waxaana sidoo kale United ay dalab u gudbisay 24 jirkaasi. dhageystayaal idaacadii subaxnimo oo anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi la socodsiinaya wanaagta tan iyo kulankeena xiga labada duurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.